tabaarka waxa la madaxweyne kugu maalay waxaan ku leenahay anagoo ka soo jeedna bahweyntii xisbiga kulmiye oo ah gudoomiye garabka haweenka xisbiga kulmiye ayaa ku leeyahay wax la taaban karo cad ayadu qabatay saaxil bisha waxay noqotay bishii ugu qiimaha yareyd 6 sano ganacsiga haystaan leer bixiyo afriyaatan doorbuu nagu soo qoray waxa soo dhanna waxa uu soo madaxweynaha toosa mikrofoonka ula wadaagnay bal aragtidooda ku aadan soo dhaweynta madaxweynaha iyo sidoo kale qiimaha leerka ee ay xukuumadda Soomaaliland oo hogaamiyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ay hirgelisay bulshadu si weyn ayay u soo dhaweysay ballanqaadkii madaxweynuhu fuliyay iyo xukuumaddiisuba waxaanay tilmaameen in bulshada Berbera ay uga dhigan tahay in ay heleen leerka ugu jabnaa oo ay muddo dheer ku taameeyeen taasi oo ay mas'uuliyiin badan oo dalkan soo maray ballanqaad ka sameeyeen inay qiimaha leerka jabin doonaan waqtiyadii ay doorashada ololihiisa ay ku jireen balse xukuumaddan uu hogaaminaya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro waxay noqotay tii ugu horeysay ee ka dhabaysa qiimaha leerka ka jabisay bulshada magaalada Berbera qaarkood ayaan wax ka weydiinay arrintaasi oo si diiran u soo dhaweeyay madaxweynaha iyo xukuumadduba ballanqaadkii ay u hirgeliyeen bulshada magaalada waxay qaarkood noo sheegeen in ganacsigoodu uu ka soo reynayo halka kuwa kalena ay sheegeen in ay magaalada ay degi doonaan oo aanay xagaa bixi doonin magacaygu waxa weeye Fadxi Farxaan Carab qiimaha leerka Berbera iyo madaxweynaha maashiyihiisa qiimuhu maanta wuxuu marayaa leerka waqtigu ay ugu fiicnay maashiya madaxweynaha wana soo dhaweynaa xaleena mashaariic kale fara badan insha Allah waad noo furi doontaa waan hirgeli doonaa sida leerka uu barnaamijkiisu hirgalay magacaygu Xasan Xaashi Yuusuf la yiraahdaa صح حسن madaxweynaha Soomaaliland maanta xukuumaddan uu hogaaminaya wadanka talinayso isagoo mucaarad oo halkan Berbera leerkada ballan qaaday inuu jabin doono leerkuna waxyaabihii bulshadu ay sida baan uga caban jirtay muddooyinkii u dambeeyay xusuusteena qiimihii leerku imika waa sidee waxaan qiimaha leerku imika waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland imika talada wadanka ku guuleystay markii hore waxa mucaaradkee ballanqaad waxyaabo fara badan oo ka mid ahaa leerku uu yiri waan jabinayaa dadka dayarta ee magaalada degan ee dhibaatadu markii hore ay ku haysaynay mar walba markuu kulayl uu soo baxo ay ka xaga baxaan ay magaalada ay cidlo noqoto marka ay suurto gelisay inuu qofkii lacagtii imika qof waloo dayaro ama uu bixin karo lacagtu iska bixin karo waxaan madaxweynaha ugu mahad celinaynaa inuu ballanqaadka markaa uu ballan qaaday inuu leerka jabinayo iyo ballanqaadyo kale oo fara badan oo markaa iman doono imikana jira madaxweynaha waxaan ugu bogaadinaynaa inuu karaamo iyo sharaf iyo uu leeyahay iyo ka dhalaalay wuxuu dadka u ballan qaaday markaa madaxweynaha waxa leeyahay wax kasta oo reer Berbera gobolada kale way ka yar xaq jirtaa waa cimiladeeda waa kuleyle leerka iyo wax kasta biyaha loo ilaaliyo dadka majority loo ilaaliyo ayaan madaxweynaha ka codsanaa madaxweynuhu wax far badan oo 8 bilood imika uu talada hayay uu qabtay oo dadku ay arkeenna waan ku ammaanaynaa madaxweynaha muxtar walaal aad iyo aad baad u mahadsantay haddii aan leerka ka hadlo taariikhda markii ugu horeysay ee reer Berbera si siman ay u helaan leer jaban weeyaan Soomaaliland intii ay jirtayna madaxweynihii ugu horeeyay intuu inoo ballan qaaday markii hore ku jiray inuu leerka inaga jabinayo ballanqaadkiisa sidii uu ahaa u fuliyay weeyaan madaxweynahana waan hambalyeelaynaa aad iyo aad ayaan u hambalyeelaynaa waxaaba u ducaynayaba dadka danyarta iyo bulshada reer Berbera oo dhan ayaa u ducaynaya maanta qof waliba oo reer Berbera wuxuu ku taamayaa horta majority mukeef la wada gashaday wadadkii mukeef ay wada gashadeen bishii ugu dambeysay inta aan gashanna waxay imika diyaar u yihiin inuu nin walba mukeef gashado marka sanadka dambe haddii la yidhaahdo 99% cidda buuxaga baxaysaaba ma jirto madaxweynaha waxaan leenahay jazakallahu khayr hambalyo maanta dee magaalada Berbera laftigeeda madaxweynihii uu yimi safarkiisa laftigeeda sad aragtado waa safar barwaaqo oo khayr oo magaalada dhani reer Berbera oo dhan baa ku faraxsan waxay ku faraxsan yihiin balantooda buu fuliyay madaxweyne sidaa hore balan uu qaado ugu fuliyana imaynu arag marka reer Berbera maanta aad iyo aad buu faraxsan yihiin madaxweynuhu yimaadana aad bay ugu faraxsan yihiin waxaan leenahay madaxweyne soo dhawow oo aan laga tagin waliba magaalada Berbera sanadadii u dambeeyay leerkii wuxuu gacabanaysa qiimihiisa dawladdan uu hogaaminaya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ballan qaaday in leerka Berbera ay jabin doonto bal sidee baad u aragtaa imika qiimihii leerka maxay iska bedelay bilii ugu dambeeyay bismillaahir rahmaanir rahiim taad banu salaam iyo Muxtar Cabdiraxmaan iyo TV-ga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland
mukhtaar horta dee farqi aad weyn baa u dhexeeya waynu u wadageedo dee leerhka adiguna reer berberaa tahay leerhkaa culays badan bay naga saarnaa markaa maanta qof walba intuu bixin jiray haafkeed ayuu runtii bixinaya markaa waxaan odhan karaa waxa weeyaan dadkii imika noloshooda waxba iska beddeshay eesiyey wada xidheen waxa weeyaan waayo waxa qiimaha dee unitskii baa wax iska beddelay markaa dadkii dabadeedna maadaama unitskii wax iska beddelay waxay kordhiyeen intay isticmaali jireen leerhka markaa waxaan qabaa runtii dee weliba dee dadka danyartaa in weliba aad loogu sii jabiyo ayaa runtii weliba dee muxuu ahaaye ayaa munaasiba laakiin imika halkan imika la marayo inta imika qiimaha aad iyo aad ba dadka ugu faraxsan yihiin waana madaxweynihii u horreeyey dee ballanqaadkiisa xilligii doorashada fuliya ee dee ka dhameeya marka aad iyo aad baan runtii aad iyo aad baan lagu faraxsan yahay mukhtaar cabdiraxmaan xariir iyo TV qaranka iyo xabsi ciid baa marka hore aad baan u salaamayaa labadaas safar haddii aan isbarbar dhigo safarkii hore madaxweynuhu wuxuu kiisii u horreeyey kaasoo ballanqaadadii hore bulshada reer berbera oo kula ballamay ee halkoodii taagnaayeen kan maanta wuxuu hadaba kaga duwan yahay wuxuu maanta madaxweyne magaaladii Berbera lagu soo dhaweeyay isagoo ballanqaadadaasi qayb ka mid ay rumowday oo runtii leerkii uu gaarsiiyay maanta martii ugu jabneed ee leerka Berbera abidkii uu gaaro oo maanta 20% inuu leerku yahay runtii markaa madaxweynaha aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan leenahay madaxweyne ku soo dhow gobolkaagii iyo bulshadaadii aad u damqatay ee duruufaha kulul ee kuleelka aad maanta ka qaboojisay madaxweyne ku soo dhow waan leenahay mukhtaar بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ده كل سيدة عادة وهيد با مدحوينه ومدحوينه قرنك قبل كاستمر كبوغضه وحا كل هي واجب شعب كوين يسود ويان إنه يكون فرحان إنه يوصل كعان كل قبل كساحل ند ومقال مدحتي الصومالي وحوي و هالبوليه دقالها قبل كساحل Somaliland oo dhan baan leeyahay marka in iyaduna si gaar ah ay ugu faraxdo soo dhaweynta madaxweynaha waxaan u arkaa inay tahay wax aad u qiimo badan runtii 100% waxa jirta Maxmed qiimaha leerkii bulshadu sideen ognahay ay ka caban jirtay ballanqaad madaxweynuhu sameeyay waqtiga ololaha bulshada magaalada Berbera bishii ugu dambeysay leerkii waa laga jibiyay oo ballanqaadka xukuumadda madaxweynuhu way fuliyeen bulshahan idinku sidee u aragtaa horta waan soo dhaweynaynaa runtii caqabad markii hore taagneed bay ahayd ilaahay baana quraankiisa wuxuu ku yiri ufuu bil ahdi inna ahda kana mas'uula dad badan oo arinta buunbuuninayo kama had celinaya waan arkay laakiin waxaan arkaa anigu oo aan taabanaya inay tahay waajib madaxweynuhu uu ummadda ugu ballan qaaday haddana uu fuliyay carabtaana tirada la shukri ala waajib magacaygu waa Cabdi Jaamac Cabdilaahi waxaan ka mid ahay dhalinyarada reer Berbera kuna dhaqan kuna digin kuna dhalay waxaan aad ugu faraxsanahay leerkii Berbera oo madaxweynuhu ka dhawaajiyay 0.20 waxaan leeyahay madaxweyne wax qabadka aad qabatay horena looma qaban wax ma hore looma qaban madaxweyne gobolka ay ku soo dhawow bulshada reer Berbera aad bay kugu heelan tahay maadaama ay hore u arag wax qabad noocan oo kale weligood loo qaban wax kastoo ay dawladdu qabato waxa nooga muhiim ah leerkaas oo la jibiyay بسم الله الرحمن الرحيم والله المقعد waxa weeyaan Cabdicasiis Axmed Cabdi Cabdicasiis Kadweyne Hargeysa iyo gobolka Saaxil labadaba waa ka soo jeedaa waxa weeyaan madaxweynaha waxaan ku soo dhaweynaynaa gobolkii Saaxil magaalada madaxdiisii Berbera mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro waxaan uga mahad celinaynaa ballanqaadkii korontada uu inoo ballan qaaday bishii Ramadaan oo hirgalay oo qiimihii loogu talagalay sidii uu ballan qaaday uga dhigay 0.2 waxyaabihii kale oo ballan qaaday nolosha kamid ahaa xagga waxbarashada haday noqoto caafimaadka haday noqoto iyagana waynu ka rajeynaynaa insha Allah inuu wax badan ka qaban doono hadii Ilaahay qadaro magacaygu Maxamed Cabdirashiid runtii anigu horta waxaan haystaa meeradan iga dambaysa ballanqaadkii madaxweynuhu sameeyay Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro runtii madaxweynuhu ka dhaweeyay aad buu ugu mahadsan yahay madaxweynuhu wuxuu noo ballan qaaday markuu ololaha ku jiray haddaan reer Berbera guud ahaan inuu leerka naga jibinayo anigu haddaan iska warramo keligay leerkaas wuxuu nagu soo qori jiray lacag qaali ah $100 iyo ka badan ama $90 buu soo qori jiray bishan waxay noqotay bishii ugu qiimaha yarayd 6 sano ganacsiga haystay aan leer bixiyo $40 buu nagu soo qoray waxaasoo dhanna waxa uu soo madaxweynaha xukuumaddiisa waxqabadka aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa maanta madaxweynihii Socdaal buu ku yimi Berbera
dee berbera kulley in badanna leyrkii ka cabanaysay sidee u qaabilaysaa kula timaanta madaxweynaha maanta waxaan jecelahay reer Broodan iyagoo isku duuban in madaxweynaha si weyn maanta loo soo dhaweeyo maadaama abaal weyn oo gobolkan uu magaranaysa iyo ballanqaadkiisiba iyo wixii dee xukuumadda laga sugaya haddii gobolka wax qabad ku soo kordhisaba inuu shaygu horeeyay oo madaxweynuhu noo qabtay hay shaygan in badan ba ka cabanayay anu hadda muddadii aan berbera joogay ugu yaraan 15 sano waxa laga cabanayay leeroon waa markii horeysay waxaan ka mid ahay dadkii aan aaminsaneyn markii hore in leerkaas maalin kaliya jabayo xitaa madaxweynuhu maalinta ballan qaaday wax islaaday waxa weeye ololayaashu wixii lagu gali jiray marka aad iyo aad madaxweynaha ugu mahad celinaa si weyn madaxweynaha waxaan leenahay bulshada gobolka saaxil ha loo soo dhaweeyo ay ugu mahadnaqeen isla waliba social media waa kuwii mariyay mahadnaqa madaxweynaha aad iyo aad baan madaxweynaha ugu mahadnaqaynaa oo number 1 ka ahaa inuu leerkaasi noo jabiyo ballanqaadkiisina bari maalintii hore ololaha ku ballan qaaday inuu jabiyo number 1 waxaan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha والله مدحوين واد مادسن tahay leerku boqolkiiba boqol halkii ugu fiicneed buu marayaa insha Allah waxa jiray yaro de googo ah laakiin intaasi mar hadii leerkii jabay oo dul qaadanayna wallahi aadna wuu soo dhaweynaa madaxweynaha mar haduu berbera ku soo socdo biyo balaadhitan uu xarig ka jarayna aad baan iyadana ugu soo dhaweynaa magacay waa Cabdiraxmaan Ibrahim Dirir leerku naga jaba anu waxay saddex talaagood bay baxa ganacsada waliba macnaanayst halka ka bixin jiray $260 bishan waxaan bixiyay $130 alxamdulillah boqolkiiba marka macnaheedu ka boqolkiiba 50 kala baran ayuu ka jabay madaxweynaha Soomaaliland ololihii buu ku ballan qaaday inuu leerka berbera ka jabin doono ballanqaadkaasi waa hirgelay baad leedahay ballanqaadkaas kii horeeyay ka hayna ee berbera gobolka saaxil sida leerka xoog buu ka caban jirtay berbera muddooyinka dambe leerka uu ka caban jiray ee siyaamir ma gashaana insha Allah billahi kareem maxaad leedahay marka xukuumaddan hogaaminaya madaxweynuhu oo maadsantaa lana xukuumadda والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين leerkii ما شاء الله ويان قيمة toban waxa weeyaan qiimihii uu nagu soo qori jiray 50% buu nagu soo qoraa waxay u baahan tahay in warshadu in mashruuciina la raqaajiyo madaxweynuhu uu dhagax dhigay ee dabka warshadana dib u qiimeyn lagu sameeyo mashiinadeeda waayo capacity-ga magaalada iyo leerkan sororka ay habeenkii shidayaan isma qaadi karayaan marka in horta mashiinadeedii la qiimeeyo wixii kale mashiina cusub oo lagu soo kordhin karo la soo kordhiyo marka tayadana inuu noo hagaajiyaan doonaa madaxweynaha tayadiina hagaajiyada qiimiha wada hagaajiyada tayadana noo hagaajiyo waan ku amaanaa madaxweynaha intaas waqtiyada hore ololayaasha marka madaxweynaha tartamayaasha ballan qaadayaan waxa inta badan may dhici jirin bay inay hirgeliyaan ballanqaadkooda ma isleedahay dawladdan hogaaminayo madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro way hirgelisay waxyaabo badan uu hirgeliyay jira waan ku amaanaa leerkaasi kookooy waxyaabo kale uu doono balqaaday daree berber ahaan inoo hirgeliyaan rajeynaa insha Allah taala aad baa master leerku aad iyo aad buu noo jabay ha jabay maxay toolay leerkaas oo aad iyo aad markii hore aan uga cabanaynay macnaha leerkaasi wuxuu noqonayaa magaalooyinka Soomaalida marka la isku wadaro iyo guud ahaan geegan Soomaaliland ba magaalada ugu leerka jaban leh madaxweynaha aad iyo aad baan ugu mahad celinaa maxay toolay hadda ayuun baan helman maleynaya madaxweynaha reer saaxila oo deegaan ahaan ka soo jeeda gobolka saaxil madaxweyne aad iyo aad buu mahadsan sidoo kale waxaan ugu mahad celinaa dhawaan maxay toolay shirkadiis gaarsiinta oo uu meel laga saaray taasoo maxay toolay dhalinyaradu aad iyo aad ugu baxnaayeen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacaygu waa Asma Umar Nuur waxaan ka mid ahay bahda kalluumaysiga ee gobolka saaxil ama degmada berbera waxaan haystaa processkan oo la yiraahdo gobsoor runtii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan uga mahadnaqayaa abaal weyn ugu hayna haddaan reer saaxil leerkii uu naga jabiyay maadaama leerku qaali nagu ahaa danyartu magaalada mar walba ka xagaa bixi jirtay qof danyar ku noolaan kareen laakiin imika danyartii magaalada way joog karaysaa ee siba shidan kartaa maraxwad bay shidan kartaa waxaan la awoodi jirin oo dadku awoodi jirin danyartii inay maraxwad shitaan ما شاء الله تبارك الله مدحوينا kugu maalay waxaan ku leenahay anagoo ka soo jeedna bahweyntii xisbiga kulmiye oo ah gudoomiye garabka haweenka xisbiga kulmiye ayaa ku leeyahay wax la taaban karo cad ayad u qabatay saaxil waxaan bixin jirnay leerka $160 ama $170 bishii dhamaatay meherada waxaan ka bixiyay $170 marka leerka aad iyo aad u jabay maadaama leerkii jabay hadaba wuxuu baahay leerkii tayo imka xaaloo kale 3 jeer buu leerku magaalada ka damay ma xamili karto dadka berbera ku nool si kin yar inuu leer ku damo idina madaxweyne leerkaana laga tayeeyo
aad iyo aad adigoo mahadsan oo wax qabtay oo wax qabadkaaga wax la muuqdo oo la taaban karo leerka qabatay yahay oo cabasheedii aad ka soo jawaabtay mudane madaxweyne mar labaad waxaan ku leenahay cabasheedii ka soo jawaab maadaama aanu hantida yaraan haysanaa ay saacado gudahood nagaga baaba'ayso anoo kalluumaysataanay kalluunku ma xamilo leer la'aan shamiran marka mudane madaxweyne leerka han loo tayeeyo bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu saddexan waa xamsan maxamed xamed kamid ah shacabka gobolka saaxil haddaan ka hadlo arrinta leerka oo runtii aad iyo aad madaxweynuhu qiimaha oo runtii markii hore qofka laga qaadi jiray $100 iminka laga qaado $50 aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa barayska in madaxweynuhu si wanaagsan oo hawshaa daacadnimo looga shaqeeyey runtii oo leerkana aad iyo aad hoos nooga jebiyey waxaan leenahay madaxweynaha qodobka leerka iyo wax kalena waa laga sugayaa والسلام يا تيفيga qaranka warbaahinta tv-ga qaranka runtii madaxweynaha aad baan ugu mahadcelinaa shaqada weyn oo qabtay ah inuu gobolka saaxil ballanqaadkiisii ahaa inuu leerka jabiyo uu kaga dhabeeyey runtiina waa wax arrimaha bulshada taabanaya oo bulshada waxa faa'iido u leh waxa qof walba bartiisa ku gaadhiya taabanaya oo arrimaha bulshada ee hadday tahay caafimaadka waxbarashada leerka biyaha in wax laga qabtaa runtii waa wax dadkeenu baahi weyn u qabaan madaxweyne aad iyo aad baan ugu mahadcelinaa runtiina waa wax weyn oo la dareemay waxqabad weyn oo laga dareemay gobolka saaxil السلام عليكم maanta madaxweyne berbero ku sugan yahay baa idinku dhalinyar ahaan iyo bulsho ahaan ba sidee soo dhaweynaysaa runtii aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa waan mudan yahay madaxweynuhu soo dhaweeyo maadaama uu ballanqaadkiisii ahaa uu fuliyay ballanqaadyadiisii qayb badan oo kamid ah aad baan soo dhaweynaynaa madaxweynaha bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Muniir Maxamed Axmed kulay madaxweynuhu safar buu nagula joogaa maanta waa safar shaqo madaxweynaha kaliya waxaan ku amaanaynaa oo nagu mahadnaqaynaa ka berbera ahaan gobolka saaxil kulli waa gobol ka cimilo duwan gobolada kale ballanqaadkii madaxweynuhu oo lalihii uu sameeyayna run ahaantii uu fulay oo uu ballan qaado July uu hirgalay marka madaxweynaha waxaan leenahay aad baad ugu mahadsan tahay ballanqaadkii ugu weynaa berbera ee aad u qaado oo runtii aad fulisay aad baan kaaga mahadcelinaynaa madaxweyne maanta dad madaxweyne berbera ku sugan yahay socdaalkiisii hore leerka berbera oo dadku ay ka cabanayaan buu yimi maanta markaas barbar tag socdaalkan uu ku yimi berbera sideebada ka dhigantay idinka reer berbera wallahi runtii de waxay ka muuqataa soo dhaweyntii madaxweynaha bay ka muuqataa oo reer berbera ay ku midaysnaayeen runtii si madaxweynaha soo dhaweeyeen bay ka muuqanaysay waayo de waxa weeyaan isbedelkii runtii wuxuu ahaa fulin kamida waxa weeye ballanqaadyada madaxweynaha isbedelka berberina runtii 30 sano u dambeeyay waxay ka qeylinaysaa leer baahayd maadaama leer ahayd oo madaxweynuhu ballanqaadkii runtii uu fuliyay reer berbera gacmo furan madaxweynaha soo dhaweynayaan midnimo ku soo dhaweynayaan aad baanay runtii safarkiisaasi ay madaxweynaha waxa weeyaan looga mahadnaqayaan waxa weeyaan ballanqaadka uu fuliyay runtii marka waxaad oran kartaa dee uu ka duwan yahay safaradii kale ay madaxweynayaashu runtii ku iman jireen gobolka saaxil waayo in badan bay leer ka qiiniyo madaxweynayaashii kala dambeeyay waxa laga hadlayay wuxuu ahaa leerka cabashada leerka soo noqnoqotay in badan madaxweyne kastaana waxbaan ka qabanaynaa buu lahaa laakiin se tan waxa noqotay abid qiimihii ugu hooseeyay ee waxa weeyaan laga dhigo leerka gobolka saaxil marka waxaan leenahay madaxweyne aad baad u mahadsan tahay insha Allah tacaala waxaan rajaynaynaa waxa weeye ballanqaadyo kale oo wanaagsan inaad insha Allah tacaala aad dhagax dhigin doonto insha Allah ومختار عبد الرحمن محمود يا حمسه عيد هو idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo